السلام عليكم. سؤال محمد حوينياشي dalka soo maray kii wanaag sameeyay wanaagiisa shakhsi ahaan loogu maamuusaa kii xumaata sameeyay ama wax baabiyeena qabiil dhan dusha looga saarayo loo yiraahdo reer hebel oo dhan ayaa waxa sameeyay yani wanaagiina qof kaliya ayaa lagu maamuusay halka xumaatadina reer dhan dusha laga saaray tusaale ahaan madaxweynayaashii Soomaalida soo maray ninka aan isleeyahay ugu wadanisaha ama taariikhdooda ay leedahay wuxuu ahaa aadan Cabdulla Ismaan aadan Cade wuxuuna noolaa xilliday Soomaalida dhan muwaadiniin fiican ay ahaayeen waxa abwanadeeda ka garanayso qaabkii u gabiyo jireen sida Cabdullaahi Suldaan Tima Cade iyo عريس عيسى كارشة أنا عبد الله اسمه مكان وحيابي وهجاجية ودن لما يراهدو هوية وح سمية أو هجاجية وحوية وحجاجية هوية وح في عن سمية لما يراهدو واحد هذا شخص أنا مهموس خلاص يا واحد هذا أنا عبد الله اسمه أي واحد وناجي ساس ويا مواد بوها كسر جدب حاولت مع محمد سياد بري محمد سياد بروحها هناك يحمام ولا صعدة نقصته حمانتي سايب النت وكتب القرآن كأوبينية ضد مسلمين وديجو حرام ويهين أقول لاي هذا واحد هذا محمد سياد بري أو دارود هبادت كلاي دارود بدت كلاي لما يراهدو محمد سياد بري هبل شخصيات كاس dadka laayay lama yiraahdo iyadoo wada ognahay inaan daaro dadka leen waxa Maxamed Siyaad Bare dadka ugu badnaa la dagaalamay daaro ahaayeen sida SSDF oo majartanayd iyo SBM oo ogaadeenayd ka soo tag 19 dawladda Soomaaliyeed hore markay burburtay waa lagu kala tagay oo Muqdisho waxay noqotay meel qabqabalayaal badan oo soo baxaan oo qasan Soomaaliland xogaa meel nidaam yar u keenayo ayay noqotay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland dib u dhisay ee dibadda u taagay waxyaabo badan fuliyay waxyaabo badan diyaariyay balse ka dhintay wuxuu ahaa Maxamed Ibrahim Gaal lama yiraahdo hawar awal lama waxa wanaajisay Ciise Muuse wax wanaajiyay ama hawar walba dalka dhistay lama yiraahdo waxa la yiraahdaa shakhsi aan ayaa maamuuska loo siiyaa daahriyaale kayn la mid buu ahaa waxyaabo badan wanaajiyay lama yiraahdo Samaroon ayaa dalka dhisay laakiin ka u timaado Muuse Biixi Cabdi oo dadka badana ay aaminsan yihiin in waxyaabo badan qalday waxay ku leeyihiin hawar awal dhan wax qalday hawar walba saa sameysay hawar walba sadbur sameysay lama eegayo wasiirka arrimaha gudaha waayo gudoomiyaha golaha guurtida waayo gudoomiyaha baarlamaanka waayo taliyaha booliska waayo kaliya madaxweynihii oo shakhsiga ugu sareeyaa ay u baahan la eegtaa leeyahay hawar awal dhan ayaa wax xalaysa xirooyinka haduu talada qabtana labada mid ahaan u baa u taala haduu wax wanaajiyeen wax la dhihi doonaa shakhsiga wax wanaajiyay haduu wax xaleeyeen wax la dhihi doonaa habar Yunis oo dhan ayaa wax xalaysay سؤال ما كان يسوي دي جواب تيدا أقوبان هدي أدفعنته وجواب ودقان $1,000,000 وجواب أنا وسان هو وعي كر أقاضي دون تبغول كبغول وفانسين دون توحى الصومالي اسكو غلاف سنة اسكو نعضي كالسوني الآن تينا عيبك كانتي وحويا أديولوجيا دخل إدتك أمسيهين وحمان تهدنا الريرنا الله صاري اللي هذا الريركا يلحيين بقوا قفكوا هناك سميان اللي هي شخصية كريه أما هبل أي هناك سمية مركا أنا محن لقدبون الله يراهن وحنا لقدبون وحياة بدون لقدبون قدرك وجهرين لقدبون وحويا هدي على رفتقف لا غير هبل ونبا واضحون هبل wax sameeyay runtii sheego waxaan ku tiraahdaa walaal reer hebel nama wada xumee shakhsiyaad bay ahaayeen hebel bay ahaayeen hebel ha u dhaafin qofka marka hadii aad wacyi geliso isna waxa laga wacyigiisu isbedelo oo marka la doodeen ama aan yeesin hada wax u sheegto ehelkaaga ba Allah ka dhigay soo kala qodobka loo baahan yahay waxweeyaan dhalinyarta aqoonyahanka ah imka Soomaalidu waxay moodaa inay ka dhex baxeen ay ku mashquulsan yihiin buugaagta ajaanibta ee qortay oo waaqicina run ahaantii ka duwan iyo waxyaabaha sida dadka kale u nool yihiin mana gaarin runta marka laga hadlo waayo dadkaasi 300 oo sano ayaan ka dambeynaa waxa loo baahan yahay markaasi aqoonyahanka Soomaaliyeed in taariikhda Soomaaliyeed rasmiga ah inay daraaseeyaan taariikhdu qaraadahay warun laakiin ay daraaseeyaan inta xunna ay ka saaraan ay qoraan ay diyaariyaan taariikh meel looga soo hagaagi karo ay ka dhigaan inta xunna ay ka saaraan inta runta aan la barmood gareeyo la sheego oo meel walba la dhigo qodobka ugu dambeeya marka waxweeyaan aan ku soo gabagabeynayo waa wacyi dadkeena Soomaaliyeed ama haddaan Soomaaliyeed wacyigeena aad ayuu u hooseeyaa waxa loo baahan yahay wacyigeena in kor loo qaado inta wax garadka inaanay aamusin oo aanay oran qabyaaladu way xuntaa lagama hadli karo waxa loo baahan yahay inaad ka hadasho wacyiga ummadaada aad ka caawiso oo aad kor u qaado waxa markaasi kula qaldan dadka aad u tusto adoo markaas u barbar dhigayo wanaag badan oo dadkan lahaayeen